السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى waxau fiiriyaa qulubtiina iyo acmaashiina. Waxaa qulubtiina ku jira iyo acmaashiina. Sidaa daraateed xadiiskii nebiga wuxuu ku leeyahay attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa. Intuu nebiga calayhi salaam laabtiisa tilmaamay ayuu 3 jeer ku celiyay oo ah alla ka cabsiga halkan ayuu ku jiraa. idan qalbiga iyo caafimaadkiisa ama bukaankiisu ama dhimashadiisu waa meesha qofka muslimka inta badan uu eego. War kuwa qalbigooda dhinta miyaa tahay, mase kuwa buko ayaa tahay, mase kuwa caafimaadka qaba ayaa tahay. Waa 3 darajo oo aad u kala durugsan. Caafimaad qabka qalbiga waxaa ku xiran salaaxa adduunya ama wanaaga adduunya ama midda aakhiraba. Fasaadka qalbiga fasaadana waxaa ku xiran aakhiro iyo adduunba fasaadkeeda. Waayo qalbiga waxaa fasaadiya waxaa ka mid ah gaalnimo iyo istustus iyo kibir. Waaba waxyaabaha diida bulshada inay bulsho noqoto, waa qalbiga fasaada. Bulshada haddii qalbiga ka caafimaad qabto waa bulsho nadiif ah, waa mujtamac jiri kara noloshan adduun. Hadduusan qulubta ka caafimaad qabin waa bulsho aanay jiri karin. Qulubta way bukootaa, waxaana bukeysiya gaalnimada iyo kufriga, waxaa bukeysiya macaasida, waxaa bukeysiya dembiyada qulubta digta siday u kala waaweynta. oo mathalan waxaan u baahanahay acmaalil qulubka la tilmaamo. waxna waa wax qalbiga lagu nooleeyo sida dhikriga Ilaahay, xuskiisa Ilaahu la weyneeyo, salaadaadka iyo cibaadooyinka la imaanayo, xasanaadka fiican. waxaasi qalbiga ayay nooleeyaan. waxna waa laga saafi yeelaa qalbiga oo ka mid ah riyaadka iyo sumcada. iyo riyaagu waa camal qalbiya. xadiiska nebiga muxuu tilmaamayaa dadka ugu horeeya naarta lagu shidayo inay yihiin ahlu tawxiidka. 3 qofood ee naarta ugu horeysa la gelinayo waana 3 qofood oo qalbiga ka bukooda. maxay sameeyeen acmaal saalix ah, laakiin qasdiga qalbiga ayay hilmaameen. acmaashaas dadkay kaga rabeen ayaa qaldantay oo Ilaahay dartiis kamaan ahayn. oo waa maxay? nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay kan ugu horeeya naarta lagu shidayo waa mid sheekh ahay oo qur'aan akhris badnaay. markaasaa la yiraahdaa wixii nimco ahay ee lagu siiyey maxaad ku samaysay? wuxuu yiraahdaa Ilaahu habeen iyo maalinba qur'aanka akhrinay. waxaa la yiraahdaa waxaad u akhrinaysa waa in lagu yiraahdo hebel waa caalim, waa sheekh balaayo ka dhacda caadi ahayn. dhibaataasaa lagu yiri oo dadka u yiraahdeen. marka aniga hadda waxaan ku hayo male, aakhiradaada waxa u keensta male. khalaas cinda Allaahi waxba lagama hayaa la yiraahdaa ee naarta gal. mid labaad imaada haddana wuxuu leeyahay Ilaahu dartaada jihaad u galay, dadka qoortiga goynayay saana ahay. maya, waxaad rabtay in lagu dhaho hebel waa geesi, waa balaayo ka dhacday, seef banaanka taaloo wataa, waxaa waay dareedashid qoortu ka goynaa. intiina waa lagu dhaha oo adduunyada lagu dhaha. marka cinda Allaahi wax kuma yaal, adigana gal. mid saddexaad oo asigana wax bixiyey waxaa la yiraahdaa asigana waxaa rabtay in lagu dhaho nin deeqsi waaye, lacagta waa ka horeysaa, kii weydii hore ku siinaa oo waa tahay adduunyadii lagu dhaha. cinda Allaahi adigana waxba laguma hayo, gal naarta. 3diiba saasay naarta ku gormay. dadka ugu horeeya noqday naarta lagu shido. ilaan waa acmaalul quluub. waxaa la fiirinayaa qulubta ma ka qasdisay. laakiin hadduu mar qalbiga xumaado oo ay gasho istus iyo riyaad iyo kibir iyo is-cajabin iyo is-afuufid iyo waa haddii xataa ay ku dhihi waayeen dadkii waa hebel balaa magacaa la shisheegi waay, waa isku midda hal bacad lagu lasalaamo. qulubta maxaa nadiifiya, maxaa caafimaadiya? Ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa ayuu noogu sheegay qad jaa'akum mawcidatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
xagga Rabbi waxaa idinkaga yimid baa leeyahay mawcidatu waano iyo laabta waxay ku caafimaado. laabta maxaa laga caafimaadinayaa? waa aljahl iyo wuxuu dabada ku wato oo shirki oo gaalnima iyo wixii lamid ah. waxaa laga caafimaadinayaa shahwaatu nafsi iyo wixii lamid ah. waxaa laga caafimaadinayaa shubahaadki. waxaasoo dhan waxaa nadiifiya oo meera wa shifaaun limaa fi suduur. nolosha dhan xataa waa caafimaad buu yahay nolosha dhan. laakiin waxaa noola tilmaamayaa haddii qalbiga uu caafimaado inay nolosha dhan caafimaadayso. ilaahay wuxuu noo tilmaamayaa inay qulubta caafimaadi karto oo xumaanta laga saari karo. waxa caafiyaana inay tahay kitaabka qur-aanka. waxaan u baahannahay inaan qulubteena dib u fatashno oon baadhno wixii qashina ku jiro oo aan nadiifino daahir yeelno. kana daahir yeelno xasdi iyo xumaan iyo wixii lamid ah. siiba ka daahir yeel waxa camalka buriya. adoo shaqaynaya oo haddana shaqadaadii wax ka soo qaad aysan noqon oo aad salaad tukanaysa salaadaadu waxba aysan yeelan weydo, waa hal bacad lagu lisay. qulubtu waa meel si gaara loo fiiriyo oo aad la xisaabtanto ood dhahdo intee xaasidnimo ugu jirto, intee dhibaato ku jirto, war intee xaqdi ku jirto, intee oo xaasidnimo walaala u qabtaa. intaasoo dhan inaad ka sifayso. intuu daahir yahay intee rabbigeeda weyneynaysaa oo aan wax kaloo dhibaano ku jirin. taasaanu u baahannahay inaanu sameyno. wasala allahu cala nabiy. asalaamu calaykum waraxmatullah.